waxyaabaha aan u daliishanayo inaysan maaragtay diyaar garowgaasi jirin waxaa ka mid ah la tashi la'aan waxa lagu soo darayo. Soomaalidana inta badan way ku dhacdaayoo waxaa laga soo qaadaa inaysan wax diidi karin oo ay dad wax diida ahayn oo wixii loo soo qaaday iska qaataan. waxaa ka mid ahayd shirkii ugu dambeysay ay wax ku burbureen ayadoo aan maaragtay maxaakiimta lagala tashanin oo aan ra'yigoodii la weydiinin wax ay ka qabaan ayaa markii ay Khartoum yideen la yiri muxuu ahaa kursigii ay jaamacadda carabta maamuleysay dawladda Kenya la maamulaysa dhexdhexaadintii waa lala maamulaya. arrinta noocaas oo kale markii la soo kordhinayana caqli ahaan iyo maaragtay nidaam ahaanba waxaan isleenahay waxaa munaasab ahaan lahayd in dhinacyada ay khusayso lagala soo tashado oo iyadoo la og yahay la keeno. laakiin in miiska markii lasoo fariisto lagu sheego la yiraahdo shalay waxaa shirkan daadihinaya jaamacadda carabta maantana Kenya la daadihinaysa runtii markaasi waxyaabaha aan la tashi la'aantaas ka mid ahayd. waxyaabaha marka aan dareensanahay inaysan dhexdhexaadnimadaasi ay dhaawac ku jirto ama qolana la riixayo qolana la soo dhaweeyay waxa kamid ah muxuu ahaa Nairobi maraan maaragtay aan kulan kula yeelanay diblomaasiyiinta Carabeed iyo kuwa maaragtay beesha caalamka guud ahaan kula yeelanay aan la kulanay iyadana mar kale muxuu ahaa UN-ka iyo hay'adaha deeqda bixiya ee ka shaqeeya muxuu ahaa Soomaaliya ka shaqeeya. waxaan hor dhignay waxaan idhi magaaladii Muqdisho oo aad in badan ka sheekeyseen ama koonfurtood in badan ka sheeganeyseen in nabadgelyo darro darteed wax looga qaban waayo maanta nabadgelyo aanay kharash idinkaga bixin oo muxuu ahaa ka wanaagsan intii hore wax badan ka wanaagsan ayaa diyaar ku ah. marka waxaa la rabaa inaad maaragtay adeegyadii aad qabanayseen aad soo dhaweysaan waddankeena aad ka shaqaysaan hawshaas aad keentaan. runtii waxay markiiba tilmaameen oo yiraahdeen si degdeg ah wali muxuu ahaa amni kama jiro. markan dambe ee hadda maxkamadaha yimideen maaragtay cid walba amaanka oo meeshuu rabo maray waxay yiraahdeen wali amniga sidii aan rabnay maaha. waxyaabaha aan kala hadalnay waxaa ka mid ahayd airportka habeenkiis loo adeegsado wuxuu u baahan yahay nalal iyo adeegyo yaryar u baahan yahay. dekadana si ay deeqda iyo maraakiibta iyo waxaas uga soo degaan waxay u baahan yihiin maraakiib ku go'dan in laga sifeeyo qalab yaryarna la keeno. waxay yiraahdeen haddii airportka dekada la sameeyo waxay la mid tahay horumar in la sameeyo. marka horumarna ma samayn karo horumarkana cid gaar ah ka faa'iideysay war horumarka ay Soomaaliya oo dhan ka faa'iideyso oo deeqda iyo haddii aad rabtaan howliin inay ka soo degaan oo ay ganacsiga uu ka soo dego oo airportka iyo dekada cid gaarka uga faa'iideysa maxay tahay horumarkaas muxuu ahaa inaad dhinacna diyaarado maaragtay aad ku siinaysaan oo yani adeeg mararka qaarkood adeegyada shakhsiga ah ay gaaraysa in maaragtay diyaarad lagu qaado dhinacna waxa dadka wada gaaraya ay noqonaysa horumar ay gaarayso oo hay'adaha qaar ka midana ay ku jiraan hawshoodii ay ka mid tahay horumarkaas. dhacdooyinka noocaas oo kale ah waxay calaamad u ahaayeen in muxuu ahaa meelaha qaarkoodna la riixayo la lahaa idinkaa soo horumarina jooga meelaha qaarkoodna la lahaa soo horumara iyagoon xataa socon karin ayaa ka muuqanaysay. dawladda Itoobiya oo ciidan markaas u joogay meesha iyada lafteeda kuma maaragtay dhaqdhaqaaqeeda iyo sida ay faragelinta ugu haysay si saamaxaysa in heshiis la gaari karo ma ahayn. bulshada caalamka oo ahayd inay doorkooda qaataan oo iyada laftooda dawladda Itoobiya ciidankooda iyo faragelintooda joojiyaan iyada laftooda sidii la rabay ma aysan ahayn. dhinaca kale marka waxyaabaha ka dhashay in maaragtay maxaakiimta islaamiga ah soo ifbaxoodii waxyaabaha ka dhashay waxay ahayd colaad caalami ah ama mid goboleed oo ay muxuu ahaa dalalka gobolka ay ka qayb qaateen colaad inay colaadiyaan waxaas shacbiga ah ee bulshada Soomaaliyeed samaysteen in la colaadiyo oo dalalka gobolka ah ay ka wada qayb qaateen oo Itoobiya ay maartay Itoobiya ay hormuud u ahayd. waxyaabaha ka dhashay waxaa ka mid ah marka oo kale marka faragelintaas iyo duulaankaas qaawan oo Itoobiya lagu garab siiyay oo ay Soomaaliya ku soo qaaday caasimadeedii waxaa ka dhashay waxyaabo fara badan oo ay ka mid yihiin burbur adeegyadii bulshada markii hore ku aasaasmay isxilqaan iyo maaragtay rakarooni ku aasaasmay markii hore ayaa muxuu ahaa burbur lixaad leh ay u geysteen ciidamadaas. isbitaaladii waa burburay
ganacsigii baa muxuu ahaay carqalad gashay marka u horeysa keenistiisii, marka dambena maaragtay goobahoodii ganacsigaaba maaragtay aada loo istihdaafay oo maaragtay madaafiicdii iyo hubkii lagu sii jeediyo la burburiyey. iskuuladii baanan muxuu ahaa sheegoodiiba aan lahayn, dadkii aan la barakiciyey, muxuu ahaa cabsigelin iyo muxuu ahay howlo fara badan baa ka dhashay. runtii waxaan isleeyahay marka dhib weyn baa soo gaaray muasasada aniga aan u tababarnaayo waxbarashada ahayd. duulaankaas qaawanaya ciidamada Ethiopia ay dalka kusoo qaadeen iyo qabsashadoodii dhib weyn baa kasoo gaaray. qalabkii baa la bilaqaystay lagu shaqeynaya wax lagu dhigayay. gaadiidkii iyo hantidii kale ee muxuu ahaa ka qayb qaadanayay ayaa muxuu ahaa la dhacay oo la burburiyey. muasasadaas waxbarashada ee isxilqaanka ku dhisnayd waxaan isleeyahay waa dhib aada u weyn oo u baahan muxuu ahaa fadhiyo badan in looga sheekeeyo. xukuumaddii dhexe markii ay 90kii ay burburtay muxuu ahaa waxaa adkaatay in maaragtay dib wax adag bay ahayd in dib loo bilaabo nidaamkii waxbarashada. waxaa markaa 90meeyadii la bilaabay in bal waxun la bilaabo oo xaafadaha intii isu dhow iyo fasal wax lagu bilaabo oo 2 fasal ay noqdaano muddo yar gudaheed waxa soo istaagay marka inay iskuulo ay samaysmaan. waxay gaartay maaragtay caasimadda markay ka baxday kadib goboladiiba si dhaqsa ayay ku gaartay marka iskuul hoose inuu samaysmo, iskuul dhexe ku xigo, iskuul sare ku xigo. markii hore iskuul baa samaysmay, markii dambena jamciyado ayaa samaysmay, markii xigayna yani dalado ayaa samaysmay. iskuul baa la sameeyey, waxaa la ogaaday iskuulka wax ka weyn inuu jiro loo baahan yahay. markaasaa la yidhi jamciyad ama hay-ad iskuulkaas maamusha ama iskuulla maamusha inay soo baxdo. jamciyadaas marka inay maaragtay hawshii la rabay wada gaari weysay, marka dhowr jamciyadood ama jamciyado badan oo maaragtay meelo kala duwan ka shaqeeya inay isu yimaadaan oo ay maamul samaystaan oo dalad ay samaystaan. dadka qaarkood waxay qabeen waxbarashada noocaas inaan loo baahnayn oo ay tahay dad lacag la kaliya inay wax bartaan. laakiin runtii fikraddaasi waa fikrad aan muxuu ahaa khaldan. dadka wax baranayay markaad aada u fiiriso 90% ama wax ka badan dadka muxuu ahaa masaakiinta ee tabarta yar ee aan wax heli karin ayaa waxbarashadii xilligaas hanan qaaday maaragtay la kowsaday. waxbarashada xilligaas jirtay waxyaabaha ay qabatay waxaa ka mid ahayd inay dad soo aruuriyeen muxuu ahaa agoon ah oo aan aabiyo hooyo lahayn, la soo aruuriyey, cunto loo raadiyey, waxbarashadiina loogu daray, caafimaadkiina loogu daray, adeegyadii kale iyo noloshiina loo sameeyey. waxyaabaha ay samaysay waxaa ka mid ahayd muxuu ahaa inay tiro u goyso iskuulkiiba oo tiro macayana u gooyo, tiro go-an oo u gooyana dadka masaakiinta oo aan waxba heli karin ayaa intaas iskala hoo wax ku baranay. waxbarashada marka sidaas ku kortay runtii xanuun weyn bay ugu haysaa in intuu cadow soo duulo uu muxuu ahaa uu si sahlan u burburiyo. waxayna soo gaartay heer ay dugsiyada sare intay ardayda Soomaaliyeed ka baxaan, jaamacada uu dalka leeyahay ay galaan oo ay ka soo baxaan oo ay shaqadii maaragtay bulshada qaybaheedii kala duwanaa ay ka qayb galaan. waxay soo gaartay in ardayda inta dibadda loo diro oo ay jaamacada dibadda ah ka qayb galaan, dal wasaarado maaragtay waxbarasho leh oo xafiisyo manaahijo waaweyn leh oo xarumo cilmi baariseed leh arday kusoo bartay ama dalkaas u dhashay waxbarashadiisana kasoo faa'iidaystay intay wax la dhigtaan inay weliba kaalinta 1 iyo 2 iyo ka qaataan oo maaragtay meel muuqda ay ka galaan. in ay takhasusaadka ardayda xilligaas wax baratay inay caafimaadka kasoo qalin jabiyeen, inay engineering kasoo qalin jabiyeen, inay computer science soo barteen, inay shuruucda ijtimaaciga ah maaragtay cilmiga bulshada qaybaheeda kala duwan soo barteen oo ay muxuu ahaa jaamacada dibadda uga soo baxeen ayagoo tayo leh oo jaamacadihii laga jecel yahayna ay soo noqdeen. waxbarashada marka noocaas ahayd maaragtay juhdi Soomaaliyeed oo mutawaadic ku dhisantay inuu taangiga cadowga burburiyo runtii xanuun gaar ah ayay nagu haysaa. Soomaaliya markii burburka xukuumadda dhexe uu ku dhacay hal jaamacad ay lahayd 13 kuliyadood ardaydeeda ay dhan tahay taqriiban 5,000 ilaa 6,000 qiyaas ah hadda tirakoobka ima horyaalle inay ahayd ardayda markaas wax ka baran jirtay. dalka guud ahaan marka la tiriyana jaamacadaha magac ahaan marka laga tiriyo waxaan isleeyahay hadda ilaa iyo 20 jaamacadood waa gaarayaan. muqdishona marka la tiriyana dhowr iyo 10 baan ka tirinay 13 ama 12 jaamacadood ayaa muxuu ahaay ka jirtay intuu uusan taangiga Itoobiya muqdisho soo gelin.
waa la isweydiin karaa tayada iyo heerkooda iyo maaragtay jiritaankooda intuu sii socon karaa jaamacadaha noocaas oo saas u tiro badan. dalka ma qaadi karaa jaamacadaha noocaas waa la isweydiin karaa, laakiin wax ay Soomaalida leedahay oo fikrad Soomaaliyeed lagu furay ayaa ka jiray. waxaa ka jiray meelaha kale muxuu ahaa dalada waxbarashada FBNS la yiraahdo, dalada waxbarashada ahliga Soomaaliyeed oo markii la soo gaabiyo FBNS loo yaqaanay ayaa muxuu ahaa guud ahaan dalka oo dhan ku lahayd jamciyado xubno ka ah. jamciyadahaasna waxay maamuli jireen iskuulo ku jirin arday guud ahaan marka la isku soo celiyo Soomaaliya ilaa 300,000 arday gaaraysa ayaa wax baranaysay xilliyada tirakoobaha qaarkood marka la fiiriyo. horumarka laga sameeyay muxuu ahaa waxbarashada khaasatan dhinaca jaamacadaha waan garan karaa runtii waa adag tahay wadan burbursan oo Soomaaliya kala ah oo dhibaatada aragtay ay haysato, haddana inuu qof soo fariisto uu yiraahdo horumar waxbarasho laga gaaray waa wax adag oo laga yaabo cidda dhageysanaysa inay aad ugu adkaato. laakiin duruuftan haysata marka la fiiriyo runtii waxaan isleenahay horumar baa laga gaaray. waxa ay bulsho qabsan karto marka la qiyaaso horumar badan baa laga gaaray. marka laba dhinac laga fiiriyo, mesela inta la isxilqaamo dad daadsan oo masaakiin ah oo ay dhib ku dhacay in la soo aruuriyo, mesela sida jamciyada al-mashaariic al-khayriya hawsha ay qabatay oo kale oo dad muxuu ahaa agoon ah oo ama waxyeelo abayaashooda reerahooda aan la aqoono abaarihii ku waxyeelooy dhibaato ku gaartay inta la soo aruuriyo caafimaad ahaan loo daweeyo oo la qoodiyo oo muxuu ahaa markaa kadib quraankii la baro oo iskuulkii la geeyo oo ilaa ay dugsi sare ay ka soo baxaan muxuu ahaa gacanta lagu hayo oo dugsiga sare markay ka soo baxeen xataa jaamacadoodii laga fikirayo. hawsha noocaas oo kale arday qof soo maxaa noloshiisii inuu noolaan karay in kale inta la soo qaaday ilaa uu jaamacad ka soo baxay la daba socday. waxaan isleeyahay hawshaas oo hawl mudan maaragtay in la qadariyo runtiina ay tahay maaragtay waxaan la yareysan karin.